Bismillahirrahmanirrahim. Cashirkeena maanta waxaan ka bilaabaynaa hore waxaan u soo qaadanay mono substituted benzene naming and drawing waxa ku xigay di substituted benzene oo naming and drawing ah maanta waxaan joognaa naming and drawing poly substituted benzene macnaha poly means many waxa ku dhagan many substituents mono waxa ku dhaganaa one substituent di waxa ku dhaganaa two substituents poly waxa ku dhagan many substituents macnaha labo iyo wixii ka badan ayaa ku dhagan okay naming aan ka bilaabaynaa example-ka ugu horeeya name the following structure magacaab structure-ka soo socda structure-kan waxa ku dhagan 1 2 iyo 3 substituents ayaa ku dhagan ama saddex baranji ayuu leeyahay waaye kaloo kaleetood waxaa loo magacaabayaa maadaama uu ku dhagan yahay mid ka mida saddexdooda uu yahay common name waxaan adeegsanaynaa common name sababtoo ah bensiinka marka labadan laga saaro bensiinkan iyo NH2 waxay isku noqonayaan aniline waxay ka tirsan tahay common nameski aan horay u soo baranay oo maaragtay ku yeelay page 51 boga content iyo koowaad 12 common name ayaa ku yaalay mid ka mida waaye aniline markii la magacaabayo waxaa loo baahan yahay in la nambariyo sidee loo nambarinaa waxaa loo nambarinayaa alphabetical order alphabetical orderka intaada u nambarin aniline waxaa ku dhagan NH2ga iyadu ma raacayso alphabetically horey waxaan usoo sheegnay common name-ka waxa ku dhagan substituent-ga ku dhagan inuu always qaadanayo mar walba qaadanayo number 1 marka asaga kuma jiro asaga wuxuu qaadanayaa numberka koowaad asaga ayaa noqonaya labadan waxaa loo fiirinayaa common name laakiin hadda labadooda kana waa methyl kana waa ethylkii ayaaba soo horeeyaba asagaaba soo horeeya alphabetical asagaa horeeya haddana asagaa soo horeeya marka maadaama kan uu kan ku xigo kan wuxuu noo noqonayaa number 2 kan wuxuu noo noqonayaa number 3 kan wuxuu noo noqonayaa number 4 kan wuxuu noo noqonayaa number 5 kan wuxuu noo noqonayaa number 6 okay waa nambarinay 1 2 3 4 5 6 waaye 2 waxaa noogu dhagan ethyl 3 waxaa noogu dhagan methyl markaad name-ka qoraysid waxaad u qoraysaa alphabetically ayaad u qoraysaa markaad name-ka qoraysid 2 waxaa noogu dhagan ethyl marka waxaan leenahay 2 ethyl 3 methyl kadib intaan oo noo noqonaysa aniline structure-keeni marka wuxuu noo noqday 2 ethyl 3 methyl aniline structure-kan namekiisa ama magaciisa sidaas ayuu noo noqday waxaan qaadanaynaa example labaad ayaan qaadanaynaa okay example-kan labaad wuxuu noo noqonayaa haddii alla idmo
example kan labaad wuxuu noo noqonayaa Okay. waxaana la yiri name the following structure. Example number 2 noo noqonayaa kan saddex substituent ama saddex branch ayuu leeyahay oo ku dhagan kan waa ethyl namekiisa wuxuu ka bilowdaa e kan waa bromo namekiisa wuxuu ka bilowdaa b kan waa fluoro namekiisa wuxuu ka bilowdaa f alphabetically waa u horeeya b waxaan siinaynaa numberka koowaad b number 1 ayaan siinaynaa 2 3 iyo 2 3 f iyo e yaa soo horeeya alphabetically e marka dhankan oo ah saacad wareeg ayaan aadaynaa ama clockwise kan number 2 aan dhahaynaa number 3 number 4 number 5 iyo number 6 okay aan qorno magaca marka waa nambarinay structurekiina la siiyo waa nambarinay waxaan qoraynaa nameki okay alphabetically aa loo qorayaa nameka marka aa qoraysidna okay 1 bromo 3 ethyl 5 fluoro benzene structurekeeni namekiisa sidaas ayuu noo noqday okay 1 bromo 3 ethyl 5 fluoro benzene structurekan magaciisa intaas ayuu ku kooban yahay ama uu ka kooban yahay 1 bromo 3 ethyl 5 fluoro benzene okay laba example waxaa noogu xigi doonta drawing ah laba namina qaadanay laba drawing ah ayaa noogu xigaysa example ugu horeeya draw the structure of 1 ethyl 2,4 difluorobenzene structurekaas ayaa nala ka rabaa inaan sawirno okay ugu horeyn markii wax la sawiraayo qaacido ama formula aan raaci jirnaa jira formuladaas wuxuu ahaa nameka lagu siiyey nameka ugu dambeeya qaado nameka ugu dambeeya waa benzene marka sawir
structure-ka benzene ugu horeyn. Okay, aan sawirna benzene. Okay, benzene waa sawirnay. waxaan nala ka rabaa inaan nambarino. waan nambarinaynaa nambarka meesha rabta ka bilow. Okay, 1 2 3 4 5 iyo 6 waan nambarinay. waxaan nala ka rabaa inaan ku dhajino number 1 ethyl. ethyl ku dhaji number 1. number 1 waa kan. ku dhaji CH2 iyo CH3. Okay, CH3 iyo CH2. kaarboonka labaad iyo kaarboonka afraad dhaay -2 laba falooro ku dhaji, laba F oo capital ku dhaji, small letter my capital letter. Okay, numberkii labaad waa kan. ku dhaji F capital, fortag F capital. sidaas waxaan ku dhamaystirnay structure-kii ahaa 1 ethyl 2,4 difluoro benzene. qaabkaas ayuu noo noqonayaa. waxaan gelaynaa example-ka ugu dambeeya cashirkeenna oo ah example number 2. Okay, example number 2. tusaalaha labaad. draw the structure. sawir qaab dhismeedka ama qor qaab dhismeedka 2,4,6 tri nitrotoluene. structure-kaas ayaa nala ka rabaa inaan sawirno. Okay, ugu horeyn magaca ugu dambeeya qaado oo sawir toluene structure-kiisa. toluene waa structure ka kooban benzene uu ku dhagan yahay methyl group ama benzene uu ku dhagan yahay CH3. intaasaa nala ka rabaa inaan sawirno ugu horeyn. Okay, waa ka structure-kii benziinka waa sawirnay. marka labaad waa nambarinaynaa. nambaraan ku qoraynaa CH3 markaan ku dhajinay kadib waa nambarinaynaa. waa kan structure-kii toluene-ka waa benzene uu ku dhagan yahay methyl group ama CH3. horey waxaan usoo sheegnay 12 xabo ee ku yaalay page 51 ee ahaa common nameska aromaticska in mar walba benziinka xibinta ku dhagan baranjiga ku dhagan uu qaadanayo nambarka koowaad marka la nambarinayo oo aan loo fiirinaynin asaga haddii waxyaabo kale xataa ay ku dhagan yihiin alphabetical order aan loo fiirinaynin. hadda methyl waaye m uu ka bilowdaa asagaana number 1 qaadanayo.
nambarka koowaad asagaan siinaynaa. Okay, bensiinkii wada nambari saan haddaan doono waa u soo socon karaa lid saacad wareeg ama counter clockwise ama waxaan u socon karaa clockwise saacad wareeg. Okay, saacad wareegga aan u socdo kan waa 2, kan waa 3, waa 4, 5 iyo 6. kaarboonka labaad waa lagu dhegan yahay, kan afraad waa lagu dhegan yahay, kan lixaadna waa lagu dhegan yahay. yaa ku dhegan try ministry 3 shay. saddexda maxay yihiin? nitro horey aan u sheegnay, nitro group waxaa loo qoraa NO2. ku dheji kaarboonka labaad, kan afraad iyo kan lixaad. Okay, kan labaad waa kan, kan afraadna waa kan, kan lixaadna waa kan. Okay, structure-kan ayaa lagu magacaabaa 2,4,6 try nitrotoluene. cashirkeennii maanta ee ku saabsanaa naming and drawing polysubstituted benzene intaas ayuu noogu egyahay. fadlan cashirkan haddii uu ku anfacay asxaabtaada kale si ay uga sii faa'iidaystaan, iyagana markooda uga faa'iidaystaan u sii sheergaree. haddii qolooyinka nagu xiran ee cashirka mar walba uu usoo dhaco ee subscribe-ka noo saara aadan ka mid ahayna, subscribe-ka cashirka noo saar, gambaleelkana furo si aad oga mid noqoto dadka ugu horeeya ee cashirada markii aan soo dhigo uu cashirka usoo dhacayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.